السلام عليكم كسورة برنامجكن هذا maanta waxaan ka hadlaynaa Brunei waa saldanad islaami ah dhacdana waqooyiga xigta jasiirada Borneo ee koonfurta Aasiya saldanadan gebi ahaan waxa ku hareeraysan dalka Malaysia mana jirto dal kale oo xuduud leeyahay bad guud waxa lagu qasay 5.765 kilomitir square waxaana caasimad u ah magaalada Bandar Seri Begawan tirada waxa lagu qasay 4,7,499 qof diinta dadku kastaan waa diinta islaamka luqad rasmiga ah waa Malaaga dalkan waxa uu sanadii 2018 soo jitay indhaha caalamka kadib markii ay si rasmi ah u sheegeen in shariicada islaamku ku dhaqmayaan dadka siniistana la karbaashi ama dhagax lagu dirayo dalkan waxa ka mamnuuca iibinta iyo isticmaalada khamriga inkastoo dadka aan muslimka ahayn loo ogolay inay hore u soo qaataan ilaa 2 litir oo khamri ah Brunei waa dalka labaad ugu qarsan qaaradda Aasiya kadib Singapore marka loo fiiriyo miisaaniyadda dalka iyo tirada dadka dalkan waxa uu leeyahay keedka ugu weyn oo gaas iyo saliid ah 90% wuxuu dhoofiyay waa gaas iyo saliid suldaanka dalkan waxa loo magacaabaa Xasan Buqeya suldaankan waxa uu adeer u yahay xidigii hore ee uu ciyaari jiray da'yarta Chelsea iyo Leicester City oo loo magacaabo Faayiq Buqeya wiilkan waa ciyaaraanka ugu qanisan caalamka waxaana hantidiisa lagu qaasay 20 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ciyaaraanka soo dhaweeyna waa Cristiano Ronaldo oo hantidiisa lagu qaasay 460 milyan lacag dalkan waxa loo magacaabo Brunei dollar